بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسو دوادا تاريخ ذي هقاميه ويناء صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي سلطان كي مصر شام حجاز إيا يمن صلاح الدين الأيوبي وأساسيه دولة أيوبيين تا ننكا سوعلي قدس كدب سقاشان صنو يكوشرتي قعانتي سلبيين تا يورب تاريخ دا إسلام كاللغا صوب بالله وصودرتان كي نبيغا وحا صامري شخصية دواوين oo leh tilmaamo hogaaminimo aragti dheer geesinimo iyo samir ragga taariikhda baalka dahabka ka galay waxa kamid ahaa haliyay taariikhdiisu dadku ka qaataan kana helaan kabasho raganimo jiilashii hore kuwa hadda iyo kuwa iman doona Salaaxuddin al-Ayyubi waa hogaamiye geesi muslim ahaa oo noolaa qarnigii 12aad oo ku raaxaystay aasaaska awood islaam oo xoogaystay isagoo gaaray guulo waaweyn waxa uu mideeyay Masar iyo Suuriya waxa uu Qudus ka kiciyay Yuhuudi isagoo sidaas magaciisu ku galay diiwaanka dhammaan taariikhaha islaamka iyo mid reer galbeedka Yusuf ibn Ayyub bin Jadi bin Marwan bin Yaqub al-Diwani al-Tikrit waxa sidoo kale loogu yeeri jiray Malik an-Nazari Abu Muzaffar iyo Salaaxuddin waxa uu sacaan ku ahaa Salaaxuddin al-Ayyubi Salaaxuddin waxa uu ka dhashay qoys Kurdish ah sanadkii 1137 miilaadiga waxa uu ku dhashay magaalada Tikrit ee dalka Ciraaq waxa ay ahayd magaalo ku taala laba webi dhexdood kadib waxa ay qoyskiisu u soo hayaameen magaalada Xalab ee dalka Suuriya halka Salaaxuddin uu ku koray magaalada Baalbek ee Lebanon iyo magaalada Dimashq ee Suuriya isagoo halkaasi ka helay tababar isugu jira mid diin iyo mid askarinimo bilawii noloshii askarnimo Salaaxuddin ayaa askarnimadiisii ku bilaabay markuu ku biiro kooxda adeerkiisa Asuddin Sherko kaasoo ahaa taliye military oo ka soo shaqeeyay boqortooyadii Amiruddin Senki Salaaxuddin ayaa markaas ilowsanaa khilaafkii saddex geesoodka ahaa ee u dhaxeeyay Shaawir oo ahaa wasiirka khilaafada Faatimiya ee Masar boqorka koowaad ee Qudus iyo adeerkiisa Sherko sanadkii 1169 markii ay Salaaxuddin da'diisu jirtay 31 ayaa loo magacaabay taliyaha ciidamada Suuriya ee ku sugnaa dalka Masar dagaalkii oo la galay Saliibiyiinta kadib dhimashadii Nuruddin Senki Salaaxuddin ayaa u soo baxay Dimashq halkaas oo lagu soo dhaweeyay waxa uu guursaday naagtii caamalka ahayd ee ka geeriyooday Nuruddin Senki oo magaceedu ahaa Casmuddin Qatuum halkaas ayuu ku xoogaystay sharcigiisa asagoo ku guuleystay inuu u wareejiyo xoogiisa military magaalada Xalab ee dalka Suuriya sanadkii 1172 miilaadiga iyo sidoo kale magaalada Mosul ee dalka Ciraaq sanadkii 1186 miilaadiga iyadoo Salaaxuddin awoodiisa ku xoogaystay dhammaan Suuriya ayuu ku dhawaaqay xabad joojin oo la galay Saliibiyiinta sanadkii 1178 miilaadiga isagoo ujeedadiisu ahayd inuu ka soo kabsado guuldaradii ciidankiisa ka soo gaartay laakiin waxa uu soo cusboonaysiiyay weeraradii sanadkii 1179 miilaadiga isagoo ka adkaaday ciidanka Saliibiyiinta dagaalkii lagu macdaray Togi Yaqub dagaalkii Xitiin dagaalkan ayaa u dhaxeeyay sida aan kor ka soo xusnay dawladda Islaamka dawladda Umayyah iyo isbahaysigii Saliibiyiinta oo kala ahaa boqortooyada Yuhuud ee Qudus maamulkii Trablus Imaratul Antakiya kooxdii Fursan Haykal ee Faransiiska kooxdii Fursan Isbitaariya ee Malta iyo militarigii Fursan Qudus Lazarus waxa uu dhacay maalmo Sabti ah Rabiicul Thani 583 Hijri iyo 4 July 1182 miilaadiga waxa uu ka dhacay Falastiin xaafad u dhow Al-Mujawdih ee ku taala meel u dhaxaysa magaalada Nasara iyo magaalada Dibriya ee dalka Falastiin balse hadda gacanta Yuhuudda ku jiro laguna daro dhulka Falastiin awoodda laba dhinac dawladda Ayyubiya quwadoodu waxa ay ahayd 30,000 oo askari oo rag ah oo isugu jiray 12,000 oo shishiyahana ah 18,000 oo ciidan dhulka ah halka Saliibiyiinta quwadoodu ahayd 20 ilaa 30,000 oo askari oo rag ah oo isugu jiray 15,000 ciidan dhulka ah 3,000 oo ciidan gaashaan ah 1,200 ciidan fardaha ah iyo 500 oo ciidan dheereeya ah kuwaas oo ku dagaalama awrta iyo fardaha natiijada dagaalkii Xatiin dagaalkan waxa ku guuleystay dawladda Islaamka ahayd ee dawladda Umayyah kuwaas oo soo gaartay khasaare tiro yar oo aan la xaqiijin halka ciidamada Saliibiyiinta ee ku dhawaad 30,000 khasaare ka soo gaartay oo isugu jiray wax la dilay iyo wax la qafaashay geerida Salaaxuddin al-Ayyubi Salaaxuddin ayaa xanuunsaday maalin Sabti ah 20 Febraayo 1193 miilaadiga iyo 16 Safar 589 Hijriga isagoo la soo darastay xanuun xumad qandho ah sidoo kale waxa ku dhibaatooday hurdada isagoo in yar hurdi jirin
xanuunka ayuu la daris ahaa ilaa tiisa ay ka timaaday. ugu dambeyn Salaaxudiin Alayuubi ayaa geeriyooday maalinimada Arbaco ah 4 Maarso 1193 miilaadiga iyo 27 Safar 589 Hijri. waxaan lagu duugay salaad casr kadib iskuulka Al-Casisiya oo ku dhow masjidka Al-Umuwiya ee magaalada Dimashq ee dalka Suuriya. Eebaha ku naxariisto geesi taariikhda Islaamka baal dahab ah ka galay. sidoo kale Yuhuud iyo gaalada kalena casr la milaawaan u dhigay haliyay Salaaxudiin Alayuubi. waxaan halkaas ku soo gabagabeynaa barnaamijkii sida wajirka u soo jeediyeen Siyaal Cabdi Xasan, Baaji Ismaaciil Maxamuud iyo aniga ah Cabdishakuur Faarax Salaad. ما السندين